waxaan doonayaa inaan dhinacayga caawa saraaxi noqdo imaatinkaygi aan shirkan imid madaxweyne farmaajo waa kala tashaday waa soo dhaweeyey waanu ii soo duceeyey hadalkii aan ka jeedin lahaa aaraa buu ku kordhiyey ra'iisul wasaaruhuna sidoo kale laakiin saaxiibo badan oo aan leeyahay ayaa aad iigu warwaray iina digay waxay yidhaahdeen meesha aad ku socoto ma garanaysaa yacni dalka jabuuti kamay hadlahaynin war nimankaa heritage ee shirkaa wada walaalow colka wadhaf ma lagu dayey baa la yidhi ma iska hubtaa aad baa la iigu digey dabadeedna waa yaabay hadda markii aan sheekaysanay cabdirashiid iyo mursal na waxay ahayd mid aad u qurux badan laakiin xaqiiqada halkan aan ku arkay iyo hay-adda heritage dhexdhexaadnimadeeda iyo inay dood u furto Soomaali waa wax ka duwan wixii ragga qaarkii ay markaa ilahaayeen waa ay soo hambaliyeen shir fiican baa meesha ka furmay waxa la heritage waa loo hanweyn yahay waa arkayseen Soomaali oo dhami inay tiri annaga marti gelinayna waxaan arkayseen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle in sanadka dambana uu marti gelin inoo fidiyay waxaan doonayaa inaan ilaahdo kalsoonida iyo dhexdhexaadnimadaas oday Soomaaliyeed Xaaji Cabdi Xuseen Xaaji Cabdi Waraabo la yiraahdo wuxuu yiraahdaa waraabi qabashada bartay wuxuu waa halkaas oo lagaga sii hayaa heritage dhexdhexaadnimada iyo xantaa yaree jirta inay meesha ka saartaan oo xataa haddii saaxiibadiin ala sheekh baa la yiri anigu hore uma aqoon ka hadlaysaan wayda qultum fa'dilu walaw bi anfusikum inaad annaga iyo cid kale kastaba noo cadaalad fashaan baan rajaynayaa waana idin hambalyeynaya igu tashada anna waa idinku tashanaya madaxweyne farmaajo ku tashada isna waa idinku tashanaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ku tashada isna waa idinku tashanaya doodii saddexda cisho inoo socotay waxay ka hadlaysay isdhexgalka gobolka iyo maxaa inoogu jira Soomaali haddaan nahay isdhexgalkaas oo ah kow isdhexgalka dhaqaale ee gobolka iyo doorka Soomaaliya ay ku yeelan karto isbedelka gobolka ka socda iyo isbedelka geeska Afrika ka socda wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo markii dood xiisa yeelatay maanta haddana ay qayb labaad aynu halkan ku galnay faa'iidada Soomaaliya isbedelka geeska ugu jirta maxay tahay cabsi baa jirtay iyo taxadir la soo jeediyay runtiina garba loo leeyahay haddii fikir cusub hal abuur cusub iyo ra'yi cusub yimaado in la yiraahdo war colka wadhaf ma lagu dayay maxaa ka iman kara maxay yihiin faa'iidooyinku goldolooyinkuna maxay yihiin annaga aragtidayada isbedelkan cusub ee isdhexgalka dhaqaalaha oo madaxweyne farmaajo hormuud ka yahay ee uusan hugunka raacin waxa ku jira dhowr faa'iido inaynu dhaqaale ahaan isu dhexgalno inay yimaadaan trade balance isu dheelitir ganacsiga ah waxaynu ka warranay miirooga wax kale haddii la iska daayo maalin kasta la inagu soo bamgareeyo diyaarado badan lagu keeno oo iyagoo maran ay noqdaan kalluun aynaan saarin cambe saarin muus saarin waxyaabo badan oo faa'iido inoo keeni kara aynaan uga faa'iidaysan waxaa kaloo aynu ka hadalnay dhaqaalaha maalin kasta Itoobiya gala waxaynu ku bedelnaa uusan jirin marka ugu yaraan in ay iman karto in ganacsiga la isu dheelitiro balance yimaado waa faa'iidooyinka waaweyn ee ay Soomaaliya ka dhaxli karto waxa kaloo iyaduna ku jirta faa'iido kale oo ah xasilooni siyaasadeed in la helo faragelinihii la isku hayn jiray oo waliba Soomaali inta badan lagu hayn jiray inay meesha ka baxaan madax bannaanaana masiirkeena oo aan mini status yar oo Addis Ababa u tukata aysan jirin aan niraahno annaga qibladayadu waa xaramka laakiin kala faa'iideysiga iyo wada faa'iideysiga waa ogolnahay ganacsi xor ah inuu abuurmo awal bana already waxaynu saxeexnay free trade area Afrika oo dhan ka dhaxaynaya igad baynu jirtay ganacsi kale oo goboleed baa jiray sidee baynu u xoojinaa cudurrada isu gudba sidee loogu wada gurman karaa amniga sidee loogu wada gurman karaa sidee baynu dhammaanteen u wada raadin karnaa nabad iyo nolol gobolku weligiiba waa uu isdhexgelayay Afrika ahaan COMESA SADC ECOWAS iyo IGAD oo IGAD ahaan jirtay laakiin imaka ah IGAD IGAD marka ayaynan inteena ka wabinaysa ama warwar ka weyn qabtaa warwarin
waa gar u leedihiin inaad tidhaahdaan war meesha aynu bal iska hubinno waxyaabaha ka iman karo aynu eegno maxay nagaga ijaabi iyo salbisay u kala leedahay aynu darisna dhinaca negatifeka ee yeelan karto laakiin dhegaheennu waa inoo furan yihiin dhammaanteenna talada idinkaa leh wax weynna waa ku leedihiin iyo inaan gobolka iyo isu tegiisa ka baqin waxaan doonayaa markaa inkastoo la iman doono somalilan 2-3 ere ka odhan doono kooban inaan dhammaantiinba soomaalida soomaaliya halkan somalilan doodeedii aan dhegaysanay soomaaliya joogno soomaalida geeska africa oo kale oo soomaalida etoobiya soomaalida kenya iyo soomaalida jabuutiba cunsurka qofka soomaaliga ah waxaan doonayaa ina xasuusiyo gabay abwaan maxamed ibraahim warsame lahaa hadraawi oo uu ka hadlaayahay qofka soomaaliyeed in hiyigiisu dheeraado meel fog wax ka eego waa laga yaabaa qaarkiin badan inaad taqaanaan dhowr bayd baan ka soo qaadanayaa gudgudaa la yidhaahdaa hadraawi wuxuu yidhi ummad yahay dib uma guuri karo geeshka maanta ahe goosha hooyo waa laga koraa goodirkay tahay xataa goodirkuna dhabta hooyo uu ka goraa waa sahan tagaa geyigeygu waa u kow intuu waajib ii galo yacni dhulka soomaaliyeed oo geyigeygii ah aan wanaajiyo wax ka qabto doodii gobolka iyo isdhexgalkiisa markaan ka hadlaynay kuwo badan oo idinka mida waxaad tidhaahdeen soomaaliya bal horta war intaynaan gobol ka hadal haa gobolka inaan soomaaliya hagaajinno dastuurkiiyo dib u habayn lagu samaynaya inoo socda federaalismkiiyo daadejinayna inoo socda doorashooyinka 2020 baa inagu soo foollo oo ka shaqaynaynaa arrinta wadahadallada somalilan iyo soomaaliya oo xal ama xuluul midho dhal ihi ka soo baxaan waa shaqada geyigeenna inoo taalla hase ahaatee dhulka kale intaan gaadhi karo waa u gol leeyahay adduunyada go'doonkagama jiro garangar loo yaalle garaadkaygu waa dhaafsan yahay xaajo goboleed asaagay wuxuu galo ayaan anigu gooyaa dadka kaleba waxay galaan anna waa gaadhi karaa soomaaliya haddaan ahay qayrkay intuu guul suntaday gooni ii faran waar guushaa dadka kale gaadheen soomaali baan ahay baanan gaadhi karin aniguba maxaan ugu fikiri waayey oo aan u gaadhi waayey waxaa ina rag ii guulayaa tiisa gaarka ah mid waliba tiisuu rabaa inuu igu socodsiiyo anigu miyaanan ajandhe lahayn anna waxaan go'aansaday inaan la ii gabbood falin garowshiiyo jeeraan ka helo gaanka dunideyda jeeraan gaalaabaxo arlada goodi iyo goodi jeeraan gufaacada ku tago meelo garayaada meelo fogfog sahan ku gaadho meelo fogfog horumar ku gaadho aan dunida anigu kiciyo taydu gaadho gaaliyo islaamkaba ilaa la iga gacan qaado gaaliyo islaamkaba ilaa taydu wada gaadho beri iyo galbeedkaba ilaa la iga gacan qaado guray iyo islow iyo hurow gabay waa beene marka hiyiga fog ee durugsan ee hadraawi miyayna ahayn soomaaliya inaynu ku wada fikirno barigan afrika ilaa nigeria meel aanay 50 milyan ee ingiriiska ama britain ay gaadhini ma jirto waa qofka iyo hiyigiisa iyo damiciisa iyo rabitaankiisa iyo garaadkiisa xadiis baa wuxuu yidhaa innii cinda danna cadbidii weliba xadiis qudus aan malay wuxuu iga fisho marka haddaad qab weyntood hiyi leedahay waad gaadhi kartaa meel kasta cuqdada iyo ururta haddaad noqotona halkaasunbaad fadhiyi markaa soomaaliya cabsida aynu iska ilaalino arrinta somaliland aniga hargeysa xundhurteedaa ku aasan hooyaday oo 80 jir ah baa joogta 7 carruura ay igu dhashay dugsi hoose dhexe sare ayaan ka bartay 17 sanadood u dambeeyay baan ka shaqeynayay waa lagu kala duwanaan karaa waayo aniga ku dhawdo beesha dhaxan ka soo jeeda fikir kalena waan qabaa oo ah war sideebay dib ugu noqon karnaa u qori karnaa midowgii 60kii maxaynu ka yeeli karnaa taa macnaheedu ma aha beesha dhexe inay Soomaaliland wada aaminsan tahay macnaheeduna ma aha beelaha darafyadu inay Soomaaliweyn wada aaminsan yihiin dad badan oo beelaha darafyada ah ama awdal ka soo jeeda ama sool iyo sanaag bari ayaa maamulka Soomaaliland ka mid ah fikir ahaan ku qanacsan Soomaaliland inay go'do marka ayaynaan u arkin wax beesha dhexe u gaar ah yaynaan fikirka kala duwanaanshihiisana isku diidin ee aan dood qaala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahaara فلم يزدهم دعائي وإني كلما دعوتهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
marka nabi nuuxoo doonayay inuu midnimo ka wacdiyo Soomaaliland Hargeysa iyo Burco dhexdooda ay ka dhigan tahay laakiin in reer Hargeysa iyo reer Burco iyo Soomaaliland fikiraan oo yiraahdaan sideedaynu inaga ku dheeno oran karnaa balaan A waa kan laakiin balaan B sidoo ku iman karaa waa wax loo baahan yahay qof kasta oo yimaadana waa ku qasban yahay qof kasta oo yimaada dawladda federaalku ajandaha waa ku qasban yahay midnimada inuu ka shaqeeyo dastuurka dhigaya qof kasta oo imanka la doorto Soomaaliland xataa xisbiyada mucaaradka ah haddii yimaadaan ay bowbowle waxa weeye ku qasbanaanayaan in ay iyaguna raacaan wadadaas muxuu yiri Karl Marx men make their own history but they do not make as they please but under circumstances existing already marka duruufahaas Soomaali hadaan nahay in wada haysta Soomaaliland nagu haysta Soomaaliya nagu haysta sideedaynu duruufaha uga bixi karnaa waxaan aaminsanahay in aynu wada hadalladaas marka Ilaahay yiraahdo aan dib u jeexno idinkuna dhinaciina si fiican isu diyaarisaan annaguna dawladda federaalka Soomaaliya xal yimaado 94 kii buu cigaal fikiray anu waxaan aaminsanahay mufakir Soomaaliyeed oo siyaasi oo Soomaalo dhan siyaasi la mid yahay haduu jirina uu yar yahay anigu saan u maleynayo philosopher inuu ahaa waliba ayaa wuxuu eegay wadada dheer ee muuqata ajanduu keenay golaha wasiirada Soomaaliland wuxuu nimayahay aynu maanta Soomaaliya halkaas ay maraysaa aynu calankii iyo caasimadii iyo madaxtooyadii iyo qaramadii midoobay Hargeysa keeno oppositionkii ugu weynaa oo sidaan idhi qaylo iyo violence golaha dhexdiisa ka dhacday waa xaqiiqo dhab ah oo dadkii joogay ka waramayaan madaxweyne farmaajo way ka go'an tahay wada hadalladu waanu dadaalaynaa waanu dib u bilaabaynaa haddii Ilaahay yiraahdo haddii se ayna bilaabmin yaan walaalaheena ha u arkina in la isku qancinayo maya igad saasay tiri Afrika saasay tiri Mareykan iyo Ingiriis saasay yiraahdeen marka ha ii joogto halka Soomaaliland way cabsida aan qabaa waxa weeye Soomaaliya oo dhan hadeynaan isku tashan idinkuna aydan fikriga hal abuur keenin annagana dawladda federaalka xilka la saaran iyo muslimiinta baarlamaanka ku jira labada goleba aysan fikir keenin Soomaaliya waxa ay ku dambeyn doontaa China iyo Taiwan waa mahadsantihiin aad baan idinka mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaynu maanta